gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa maanta ka qayb galay kulan looga hadlayay amniga caasimadda kaas oo ka dhacay degmada Daynile ee gobolka Banaadir. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, xildhibaano, taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka iyo marti kale. gudoomiyaha gobolka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in gudoomiyihii degmadiisa Al-Shabaab intay dilka geystaan ay baxsadaan oo xilkiisa ku weyn doono isla markaana loo magacaabi doono sargaal military oo ciidankiisa wata. degmada haddii inta gudaheeda wax lagu dilo qofkii wax ku dilay asagoo nabada baxsado degmadaas waxa weeye mas'uul ma jiro, mas'uul loo sameeyna. waxa ku ballanay haday taasi dhacdo oo degmadu khalqal amni uu ku yimaado sargaalaha military oo Cabdibilaashiis iyo ciidankiisa wata ilaa gudoomiye uga dhigay ballankan qabno kaas waa marka si aan sargaal military uusan xilka uga tirsan inuu shaqada degmada u soo jeedo habeenii maalin amnigeeda taasaan ku ballanay. hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu imaanayaa xilli degmooyinka gobolka Banaadir ay dilil ka geystaan dagaalamayaasha Al-Shabaab inkastoo maalmihii dambe ciidamada amniga ay ku guuleysanayeen inay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaadka dililka ka geysanaya Muqdisho. maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha ammaanka ee dalka ayaa soo bandhigay maanta hubiyaal iyo agab kale oo qaraxyada loo adeegsado. Yunus Duran Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay rasaasta qoriga hoobiyaha iyo aalado kale oo qaraxa loo adeegsado oo duugoobay. hubkaan ayaa waxaa laga soo helay guri ku yaal degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda Xaawataako. gurigaan oo dhismo uu ka socday ayaa waxaa tagay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska. mas'uuliyiinta gaartay goobtan waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax, gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Howlwadaag iyo saraakiil ciidan. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax oo goobta hubkan duugoobay lagu soo bandhigay ka hadlay ayaa sheegay in gurigan hubka laga soo helay ay deganaan jireen goor hore dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. gurigan sida naloo sheegay wuxuu ahaan jiray rug ay nimanka argagixisadu ay deganaan jireen bariyihii hore, lagana yaabo hadda xilliyadii dambe inay siyaabo kala duwan oo qaab deegaan guri ama nolol caadi ah ay uga howlgali jireen. hubkan waa hub hore laakiin waxaa hadda loo isticmaali karaa qaraxyada oo sunta ku jirta inta la furfuro magaalada waxaa arkaysaa dhibaataan looga geysto. marka hadda baaritaankii oo socda gurigoo dhan iyo qalabka ama wax kaloo hadda ku jira si loo ogaado waa uga mahadcelinayaa ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamulka degmada oo si wada jira isaga kaashaday. hay-adaha amniga Muqdisho ayaa marar badan sidaan oo kale soo bandhigay hub duugoobay oo ay sheegeen inay lahaayeen Al-Shabaab loona adeegsan rabay qaraxyo. booliska gobolka Bari ayaa soo bandhigay hub ay ka soo qabteen gudaha magaalada Boosaaso. Umar Maxamed Soomane ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya. taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ku soo bandhigay hubka garneylada gacanta laga tuuro oo ciidanka booliska ay ka soo qabteen gudaha magaaladaasi kadib howlgallo baaxad leh oo xiriira oo ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi. taliyaha booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud oo ka warbixinayay hubka ay soo bandhigeen waxa uu sheegay in howlgalka ciidanka booliska ay ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi ay u suura gashay inay ku guulaystaan soo qabashada garneyladan gacanta laga tuuro, kuwaasi oo sheegay in ay gacanta ku hayeen kooxa doonayay in ay qalqal ammaan darre ay kaga geystaan magaaladaasi. taliyaha waxa uu tilmaamay in koox la tilmaamayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo hubka ku qarinayay xaafado ka tirsan magaalada Boosaaso ay bannaanka u soo saareen, dabadeetana luuqyo cidlo ah ay uga carareen kadib markii ay ogaadeen in ciidanka baaritaanno ay ku wadaan guryaha ku yaalla magaaladaasi. hubka aragtaan oo hubka gacanta laga tuuraa oo laga soo qabtay waagaan howlgalladii magaalada ka socday
lala socday oo ciidamadu ay baarayeen guryaha iyo magaalada iyo dhammaan waxay ilaahay maadisa waxa gacanta lagu soo dhigay hubka aragtaan oo gantaalada gacanta laga tuuraa kuwaasoo ay dhaqaqabayaashu meelo magaalada ka mid ay ku qarsanayeen dabadeedna baaritaankii xaafadaha lagu waday markay ogaadeen inay xaafadaha meelo ka mid ah intay guriga ka saareen ay dhigeen iyagoo kala cararaya in guriga lagu qabto kabacdina gacanta lagu soo dhigay waa la hayaa waa inay muuqdaan waxaan uga mahadcelinayaa ciidamadii howlgalkaa fuliyey iyo shaqadii ay qabteen oo aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin shaqo adagna laga soo maray baaritaankuna waa sii socon doonaa meelo badanna waa lasii baari doonaa haddii alla magaaladana ammaankeedu markaan idhaahdo 100% hadda waa aad way nabadgelyo u tahay. sidoo kale taliyaha waxa uu warbaahinta u soo bandhigay dad lagu soo qabqabtay howlgalka ay sameeyeen ciidanka booliska waxaana uu sheegay in dadka la soo qabtay ay dhac iyo furasho ay u geysanayeen shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso dadka ku eedeysan dhaca iyo furashada dadweynaha ayaa qaarkood lagu soo qabtay qamri iyo maandooriyaal kala duwan kuwaasi oo la sheegay in ay adeegsanayeen waxaana taliyaha booliska gobolka Bari uu tilmaamay in dhawaan sharciga la horgeyn doono waa howlgalkii ugu weynaa ee ciidanka Puntland ay ka sameeyaan magaalada Boosaaso kuwaasi oo gacanta ku soo dhigay garneelada gacanta laga tuuro iyo shakhsiyaadka isticmaalayay. xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo akhriyay habraaca lagu meelmarinayo dib u eegista dastuurka dalka. wariyaha Cali Cilmi Salaad ayaa warka inoo soo koobaya. habraaca loo marayo dastuurka qabiitirkiisa ayaa maanta la horgeeyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay yeesheen maanta kulankoodii saddexaad ee wadajir ah. xildhibaan Burhaan Aadan Cumar oo ka mid ah guddiga dastuurka qabiitirkiisa u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharaxay qodobada u baahan wadaxaajoodka siyaasadeed isla markaana uu xayiray qabiitirka dastuurka dalka. tabta ugu habboon ee loo wajihi karo dib-u-eegista dastuurka iyadoo la qadarinayo muddada kooban ee madaxweynaha baarlamaanka Soomaaliya ka harsan dastuurkan haddaan hadda laga doodin oo waqti la siin oo ahmiyadda koowaad uu yeelan priority koowaad wuxuu noqonayaa inuu baarlamaankii waji saddexaad loo gudbiyo noqonaysaa. marka waxaan isleeyahay xeer dejinta dowlad goboleedyada sidoo kalena in guddigan asaguna uu engage gareeyo oo ka qayb galiyo doodaha oo guddigu aasaasay OC form wax la yiraahdo ama guddiyada dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo runtii cutub kasta madasha guddiyada dastuurka baa loo gudbinayay way ka doodayeen waxay kula noqonayaan baarlamaanadoodii sidoo kale feedback ay soo bixinayeen ay soo dirayeen. marka ilaa 4 madalood ba hadda la qabtay oo qabsoomay muddo sanad gudaheeda oo soo badagaynay wax ka soo wax ka bedel lagu sameeyo. gudoomiyaha guddiga dastuurka u qaabilsan qabiitirkiisa baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Awaale Qiidid ayaa ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya inay meel mariyaan dastuurka inta uusan dhammaan sanadkan haddii kale doorasho eg mid dadban ay ka dhici doonto dalka waa sida uu hadalka u dhigay. inta aan buunku nagu dhicin waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeedna aan maqashiinayaa kalfadhiga halkan lixaad inaan la xirin ilaa shacbiga Soomaaliyeed dastuur uu waafaqsan yahay loo ansixiyo. haddii kale maalin walba waxaan ku jiraynaa doorasho dadban doorasho jiifta mid istaagan mid tuur leh mid qaloocan mid fadhida mid jiifta ayaa lagu jirayaa. Soomaaliya aan tuurta iyo dhabarjabka iyo hoogga iyo baan ka bixinaa walaalayaalow maanta idin hortaal ilaahay idinku dheershay maanta yeela. Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muuday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dastuurka qabyada ah ee dalka uu leeyahay uusan waafaqsaneyn dhismaha aqalka sare loona baahan yahay in lagu daro 18 gobol in wax loo qaybsado komadisna 18 gobol in wax loo qaybsado qodobka muwaafaqsan sidoo dhisay farqooyinkiisa baa iyo tamarada akhrisan komadisna golaha sidoo dhisay waxaan ku heshiinay waxay ahayd wuxuu kan ku dhisay inaan wax ku qaybsano tirooyinka hadda golaha shacabka dastuurka ma qoraay guud ahaan 275 u leeyahay laakiin gentleman agreement la galay jirwaale qaranni walbixiis nimanka saaxiibada waa la soo hadlay waa u sheegay article 72 in lagu soo daray meesha wada hadalka aad soo gelisaan 4 qodob oo kale wuxuu ka hadlayaa qodob wuxuu qeexayaa kama yiran hadlin article 72 golaha aqalka sare qaybta sida ay wax u qaybsiin waxa uu soo darwaysan ma laga heshiitaas saasa lagu qaybi ma dadkii fadhiyo ba intay wax qaybsadeen wax kala qaatay.
codkaas maqlaysaan wuxuu dambeeyey warbixinta wariyayaga cali cilmi salaada. maamulka degmada Dooble ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dadka ku nool degmadaasi kuwa oo isku biirsaday fatahaado iyo roob halkaasi ka dhacay. Cabdimajiid Cabbaas Aadan ayaa warkaan faafahintiisa inoo soo diray. iyadoo muddooyinkii dambe roob ay ku barakaceen ilaa iyo 6,000 oo qoys ah uu ka da'ay degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ee ku nool halkaasi ayaa maamulka degmada Dooble waxa uu kulan looga hadlayay caawinta dadka danyarta ee ay saameeyeen roobka waxa uu la qaatay hay'adaha samafalka ee ka howlgala halkaasi kulanka oo saacado dhowr ah socday ayaa waxa ay maamulka iyo hay'adaha isla falanqeeyeen sidii loo wajihi lahaa wax ka qabashada baahiyaadka dhinaca nolosha ee ay la daala dhacayaan shacabka Dooble. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Dooble Mukhtaar Maxamed Sahal oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto degmada. sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu carabaabay in hay'adaha iyo maamulka degmada ay ka wada hadleen sidii dadkaasi caawimaad degdeg ah loo gaarsiin lahaa. waxa halkan isla joognaa oo xaadir ah hay'adihii ka howlgelaya degmada Dooble dhammaantood wixii xaadir ku ahaa degmada Dooble ee ka howlgelay iyo maamulkii Jubbaland ee degmada Dooble anigoo maamulka magaciisa ku hadlay ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Dooble waxaan halkan ka cadeynayaa in fatahaadii iyo roobabkii ka dhacay degmada Dooble masiibooyin ay isku bedeleen oo hay'adihii degmada Dooble iyo maamulka degmada Dooble maanta halkan isugu keenay oo laga wada hadlayo dadkaasi wax gaareen markii laga xisaabtamo district Afmadow waa 17,000 oo qoys bay gaareen biyuhu khaasatan degmada Dooble waxa si khaas ah uga barakacay xaafadihii ay deganayeen guryahooda waxa uga barakacay 6,000 oo qoys. shirka maanta waxa looga hadlayay marka saameyntii ay roobka yeesheen oo ay u horeyso quutul daruuriga dadku waxay leeyihiin wax la cunaaba leeyahay intii magaalada taalay badeecahaydna hawada gashay oo way qaaliyooday meelaha qaarna baqaarada way biyoobeen oo biyaha qaadayba raashimadii inta ugu badan marka waxa weeye raashimadii oo awalan la helo masquulihii iyo guriyihii dumay oo ayagana laga qayb qaato kana ayadana aan habeen imaanin bal taagnaan karin oo dadka haysana way jirtaa oo aad baa hadda loogu baahan yahay markana in la helo. marka laga tago saameynta roobka ee dadka degmada uu geystay ayaa sidoo kale waxa hakad ku jira garoonka diyaaradaha ee degmada Dooble. Cabdimajiid Cabbaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo. Somaliland ayaa ku amartay hoteelada ku yaala magaalada Hargeysa inaan lagu qaban karin kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah maamulka hadda jooga. Ilyas Cabducali ayaa warkan Hargeysa inooga soo diray. qoraal ka soo baxay xafiiska barasaabka gobolka Maroodijeex jaamac Axmed Cabdi ayaa lagu faray hoteelada magaalada Hargeysa ku yaala inaanay dawladdu ogolaan isla markaana ogolaansho laga soo qaato marka laga rimaado xafladaha lagu qabto aroosyada iyo meherada kuwaasi oo lagu sheegay qoraalkaasi in iyagana la ilaalinayo waqtiga habeenimo oo ugu dambaysa 11 iyo 45 habeenimo. qoraalka ayaa lagu sheegay inaan hoteelada loo ogolaan isla markaana looga digayo in lagu qabto xafladaha kale ee siyaasadda iyo bulshada ay isugu imanayaan kaasi oo barasaabka gobolka Maroodijeex ku sheegay qoraalkiisa in ogolaansho laga soo qaato isla markaana la wargeliyo xafiiska gudoomiyaha gobolka Maroodijeex. warkan qoraalka ee ka soo baxay xafiiska barasaabka gobolka Maroodijeex ayaa lagu ogeysiyay madaxweynaha Somaliland mulkiilayaasha hoteelada taliyayaasha ciidamada booliiska iyo asluubta maayirka caasimadda Hargeysa in hoteelada amarka ka soo baxay barasaabka aan fulin ee xafladaha si uu ogolaado in lagu qabto hoteeladooda dawladdu go'aan ka gaadhay isla markaana ciidamadu ay